Assalaamu calaykum. Waxaad nagala socotaan sheeko show barta laga hela kaydka sheekooyin xikmada ku dheehan. Sheekada maanta waa sheeko run u dhacday kuna dhacday afarta a'immada Islaamka mid ka mid ah, kaasoo magaciisa loo yaqaan Al-Imaam Axmed ibnu Xambal. Waa sheeko xambaarsan micno aad u weyn, waxaana rajaynaa in laga wada faa'iideysan doono, aadna loogu wada riyaaqi doono. Haddaba sheekada sidaan bay ku bilaabanaysaa. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa safar galay Imaam Axmed ibnu Xambal. Wuxuu socdo safarka ku dheeraado, marba meel istaago, marba meel ku nasto. Markii dambe wuxuu arkay masaajid, kadibna meeshii buu ku dukaday, xoogaana ku cibaadaystay. Magaaladuu soo galay, cidna kama garanaynin oo adduunka waagii hore dadka la qadariyo, madaxda, culummada, muuqaalkooda lama wada aqoon. Telefishin ama social media laga barto ma jirin. Saas darteed dadka magaaladuu soo galay degnaa magaciisa waa garanayeen, laakiin muuqiisa qofna ma garan. Xilliga waxay ahayd habeen. Kolkuu shiiqa cibaadadiisa dhammaystay buu firaashkiisii meesha ku fidsaday, asoo damacsan inuu masaajidka iska jiifto maadaama uu safar yahay. Wax yar kadib markuu shiiqa indhihiisa isgalshay, wuxuu ka war helay nin ka kicinayo hurdadiisa, iskuna magacaabay inuu yahay ilaaliyaha masaajidka, isla markaana amray inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxo masaajidka. Imaam Axmed baa yidhi, ma aqaan meel aan aado oo jiifto, waxaan ahay nin safar ah, saas darteed baa masjidka u jiiftay. Imaamku muusa doonin inuu magaciisa uga faa'iideysto arrimo asiga khaas u ah. Ninkii waardiyaha wuu diiday, wuxuuna amray inuu ka baxo masjidka. Adigu wada hadal kadib, ninkii wuxuu xoog iyo muruq uga baxshay masaajidka shiiqii, asoo jiidaya buu bannaanka dhigay. Shiiqii oo yaaban baa bannaanka loo soo jiiday. Isjiidjiidkii waxaa arkay nin jidka marayay. Intuu war ku darsaday buu yidhi, oo maxaa dhacay oo labadiina isku haysataan? Shiiqii baa la hadloo yidhi, safar baan ahay, meelaan jiiftana ma haysto. Masaajidka inaan jiiftaan rabay, ninkaana waa ii diidayaa. Ninkii dariiqa maraya baa yidhi, kaalay aniga caawa ila jiifa gurigayga. Shiiqii ninkii buu gurigiisa u raacay. Markaas waayo markuu shiiqa ka yaabay ninkan tasbiixdiisa tirada badan. Ninkan wuxuu ahaa nin rootiile ah. Intuu cajiinka rifaaqayo maanta dhan wuu istighfaarsanaa oo astaghfirullah unbuu ku hayaa. Shiiqii wuxuu dareemay ninkan inuu yahay nin sha'ni weyn leh. Markuu soo baraarugaba wuxuu arkaa ninkan oo istighfaarsanayo. Waagii markuu baryay buu Sheekh Axmed ibnu Xambal wuxuu yidhi, niyahow, waxaan xalay kaa dareemay inaad tahay nin aad u istighfaar badan, ee waxaad iiga jawaabtaa, maxaad natiijo Ilaah kaala kulmiyey? Noo sheeg bal qisadaada. Ninkii rootiilaha baa yidhi, alxamdulillaah, duco kasta oo Ilaahay weydiisto waa ka helaa. Haddaaba gacmaha kor u taago, rabbigay waa i ajiibaa jalla wacalaa. Laakiin niyahow, aan runta kuu sheegay, hal ducaa jirto oo igu taagan, iyadana Ilaah aan ka sugayaa inuu ii aqbalo maalin. Shiiqii oo yaaban baa yidhi, waa maxay ducada weli lagu aqbalin aad sugayso? Markaa buu ninkii rootiilaha ku jawaabay, niyahow, ma aqaan inaad taqaan, laakiin waxaa jiro nin sheekh ah oo caalim ah oo aan jeclahay inaan arko. Magaciisana waxaa la dhahaa Axmed bin Xambal. Shiikhii baa ku jawaabay, subxaan allah, Ilaah baan ku dhaartee, taasna waa lagu ajiibay. Waa la ii kaa soo jiiday, waana anigan ku hortaagan Axmed ibn Xambalka. astaghfirullah alladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh. Sheekadii halkaas bay ku dhammaatay. Istighfaarta waa kayd albaab kasta lagu furto. Haddaba waxaan nahay addoommo Ilaahi, baahina nagama dhammaato. Qof kastana daqiiqadan waxbuu niyadda ku hayaa. Kaalmayso oo adeegso furaha wax kasta lagu furto. astaghfirullah. Haddaad sheekadan ka heshay, fadlan like dheh, kuna soo bir asxaabteena, subscribe Sheeko Show, kana daawo sheekooyin kaloo aad u xikmad badan. U faa'iidee maskaxdaada. Sheekooyin micno iyo xikmad leh baan kuugu diyaarinay barta YouTube-ka ee Sheeko Show. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.